xilli maanta ay ku beegan tahay maalinka koowaad ee Ciidul Adxa ayaa waxaa magaalada Yeed ee gobolka Bakool laga dareemayaa dabaaldegga maalmaha ciida Carafo. Boqolaal ka mid ah shacabka degmada ayaa iskugu soo baxay banaanka magaalada kuwaas oo meel fagaaro ah ku oogaya salaada ciida. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta City ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta ciid weyneeda. si wanaagsan baa looga ciiday maasha Allah si fiican baa looga ciiday Xagee ku ciidaysteen? degmada Yeed Waa tahay. Yaa salaamaysaa. waxaan salaamayaa dhammaan maamulka xildhibaanyada dhammaan wariyaasha aan salaamayaa wanaagsan macaan Waxaad ku soo dhawaatay warbaahinta City. waan ku dhawahay si wanaagsan Maanta sidee looga ciiday magaalada ku sugantay? si fiican baa looga ciiday si wanaagsan oo wacan soo dhaweynaynaa warbaahinta waxaan maanta ku ciidayaa degmada Yeed waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha ku nool degmada Yeed ilaa shacabweynaha ku nool muslimiinta ku ciidaysa meel walba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim anoo magacayda ku bilaabayo Barre Cabdiqaadir Maxamed kana mid ah dhalinyarada degmada Yeed maanta oo ciida maartay ciidamada maartay aad u soo bulshadu si fiican u ciiday si nabad ah oo bashbashi barwaaqa aan lagu ciiday waxaan soo dhaweynaynaa ayadoo maanta yaamal farax ay tahay maalin ciid ay tahay xildhibaan maxamed aadan xarbi oo ah musharax u taagan degmada Yeed xildhibaanka u taagan musharaxa 2021 waan soo dhaweynaynaa xildhibaanku waxa weeyaan mad garanaysaa si inaba aan caadi ahayn Hay mujada ciid wanaagsan wanaagsan oo wacan magacaaga Nimcaan Cabdinuur Nimcaan Cabdinuur sidee u ciidaysteen si fiican xagee ku ciiday magaalada Yeed magaalada Yeed sura wacan waan dhawahay maasha Allah sidee maanta looga ciiday maanta degmada Yeed aad baa lagu ciiday si farxad ku dhaanta lagu ciiday maasha Allah aad baan u ciidnay walkaas wala wanaagsan ciidan iyo ciid hore maxay kala duwan yihiin كل عيدنا عيد وناسن وعيد عيدوني ما أنت قاعد بنقول فرحة بدن هاي إنك سوشيال أنسر وني لما قد تقول عيد أنا فرحة بدن عيد هذا كل عام وأنتم بخير waxaan ku sugannahay degmada Yeed waxaan la soconay wafdi garab soconay xildhibaanka musharaxa Maxamed Aadan Xarbi oo maanta la ciiday shacabkiisa tolka Yeed alxamdulillah ciid waan soo tuganay farxad wanaagsan baan ku ciidnay tolka farxad iyo reereyn fara badan iyo soo dhaweyn balaaran baan helnay aad baan u faraxsanahay alxamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم magacayga waa Faysal Maxamed Ismaaciil waxaan u mahad celinaynaa AB in soo gaarsiiyay ciidan anoo caafimaad qabno nabadgelyana ku joogno waxaan maanta ku ciidnay deegaanka degmada Yeed waxaan ku ciidnay nabad iyo barwaaqo iyo nabadgelyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cabdinuur Maxamed Saaq maanta waxaan joognaa aan ku ciidaynaa degmada Yeed farxad baan ku ciidnay waxaan la ciiday sidoo kale musharax xildhibaankii oo sugeynay muddo cabaara waxaan kala soo dhaweynayaa marti sharafta noo timaaday sida quruxda badan aan shalay ugu soo daadihinay kulankooda xiisaha lahaa waxa dhan bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Cali Abshir maanta dareenkayga iyo shucuurtayda lama soo koobi karo waxa weeyaan ciid mubaarak baan leeyahay waxaan dareenkayga iyo shucuurtayda la soo koobi karnaa aad ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol xildhibaan maxamed aadan xarbi oo nala ciidayo oo degmada Yeed nagula ciidayo عليكم أنا واسكري محمود قاس عبدي waxaan ku ciidaa degmada Yeed aad baan wanaagsan ciida maanta waxaa kaloo na dheeriya farxadna musharaxan ula joogo maxamed xarbi aad iyo aad baan u soo dhaweynay si wanaagsan baan ugu soo dhaweynay degmada dhalinyarta iyo shacabka waxaa la arkayaa dadka magaalada Yeed oo raxan iskugula socda kuwaasoo iskugu hambalyeynaya Muna Cabdiraxmaan Xuseen warbaahinta City degmada Yeed ee gobolka Bakool.